kaskaaga ku biirso waxbarasho ahdaada la qaybso waxbarasho. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhowaada AMA Associates. Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed Cabdi. Maanta insha Allah waxaan soo jeedin doonaa mowduuc ku saabsan heshiisyada ay kala galaan labada dhinac ee kala ah iibsadaha iyo iibiyaha. Waa international law ayaan ka hadlaynaa ama shuruucda iyo qawaaniinta caalamiga ah ee ka ratibmaya markay laba dhinac kala iibsadaan agab ama badeeco. Insha Allah tacaala waxaan fiirin doonaa marka ugu horeyso waajibaadka saaran iibiyaha. Sidaan ognahayba adduunku waa hal magaalo kale maanta uu noqday meel alaala maaragtay meeshaad caalamka ka joogto waxaad heshiis ama mucaamalaad aad la geli kartaa garab kale ama company kale oo aad ka soo iibsan kartaa agab ama maaragtay hay'ad ama dawlad. Si kastaba ha ahaatee waxaa meesha ka ratibmaya shuruuc iyo qawaaniin ay isku waafaqeen qurumaha maaragtay adduunka wada degan si loo kala ilaaliyo ama loo ilaaliyo xuquuqda qofka iibsadaha ah. Marka waa in aan ku baraarugsanaanaa markaan waddan kale intaan tagno heshiisyo aan la galayno shirkado kale waxa aan ka filan karno iyo inaan ogaanaa in qudheenu ka iibsade ahaan ama buyer ahaan in aan ogaano wax weyn maaragtay ay inoogu jirto si aan uga badbaadno khasaare fara badan. Marka ugu horeyso marka waxaan fiirinaynaa heshiisyada iibka ee gaarsiinta wata. Sidaan la soconnaba heshiisyadu qaarna waxay wataan gaarsiin oo delivery oo wixii agabkii intaad iibsato ayaad waxaad ku qeexaysaa contractiga in aad u baahan tahay agabkii iibsasho kadib in lagugu keeno goob cayiman. Marka inta aanan deliveryga aanan gaarin waxaan ka hadlaynaa agabka qudhiisu aad iibsanaysid ka iibsada ahaan dhinaciisa haddaan ka hadalno waa in agabkaasi uu yahay agab cayiman micnihii tilmaaman oo aad garan karto si berri markii agabkii lagu keeno aad oran karto agabkii kii dalabkii aan dalbaday waa kan ama maaha wuu baalmarsan yahay. Marka cayimnaanta ama tilmaanaanta identification of inventory ama maaragtay assets is very important. aad ayuu maaragtay muhiim u tahay in la tilmaamo ama la bar tilmaamo agabka aad iibsanaysid inta uunan ku soo gaarin. Marka haddii agabka la iibsanayo uusan ahayn agab cayiman sida badeeco aanan cayimnayn ama aan tilmaamnayn marka dhinaca iibiyaha waxaa waajib ku noqonaya in uu maaragtay qeexo ama heshiisku uu ku qeexo nuuca maaragtay waxa la kala iibsanayo ama agabka la kala iibsanayo tilmaantiisa tayadiisa iyo tiradiisa waa in uu ku qeexaa maaragtay contractiga inuu ku qeexa weeyaan. Wargelin waafi ah in uu ku saabsan arrinkaasi waa in uu ka bixiya. Haddii agabku uu cayiman yahayna dee agabkii lagu heshiiyey waa in maaragtay la soo gaarsiiyaa qofka laga iibiyey. Marka waqtiga agab gaarsiinta haddaan ka hadalno haddii ay jirto oo iibiyaha iyo iibsadaha ay ku heshiiyeen waqti cayiman oo tilmaaman in la keeno agabkii waa in maaragtay uu u hoggaansanaada iibiyuhu waqtigii loogu talagalay inuu soo waarido uu keeno agabkii goobtii loogu talagalay. Haddii ay jirto goob cayiman oo lagu heshiiyey haddii ay jirto ay ku qeexan tahay heshiiska labada dhinac ay galeen markaasi iibiyuhu waxaa ku waajibayo goobtii in uu keeno agabkii loogu talagalay. Tusaale ahaan adigoo magaalada Jowhar jooga ayaa waxaad iibsatay agab yaala magaalada Nairobi. Iibiyaha haddii aad ku qeexday agabkaas in Jowhar lagu keeno iibiyuhu xal u noqon maayo inuu ku yiraahdo agabkii waxaan kuu keenay Soomaaliya wuxuuna yaalaa magaalada Muqdisho. Waxaa ku waajibayo
agabkii inuu kugu keeno magaaladii cayimnayd ama goobtii cayimnayd ee adiga aad dalbatay. haddii marka goobta aysan cayimnayn oo aynan ku qeexnayn heshiiska, iibiyuhu waa inuu is ilaaliyaa, sababtoo ah waxaa jiro wax la yiraahdo maldahaad ama heshiis maldahan ama aan maaragtay maxaan ku wadaay la tilmaamin laakiin la filayo. marka iibsaduhu tusaalihii hadda aan soo qaadanoo kale magaaladii uu joogay in loogu keeno ayuu filanayaa. iibiyuhu maaha in uu iska maleeyo in uu maaragtay geyn karo magaalo madaxda oo kale, tusaale ahaan muqdisho oo kale. waa in uu maaragtay kala hadlaa kalena heshiiyaa iibiyuhu iibsadaha goobta loogu geynayo iyo maaragtay maxaan ku wada goobtii la filanayo waa inuu ugu geeyaa. taya ahaan haddii aan ka hadalno, way kala duwan yihiin marka la kala iibsanayo cunnada sida perishable food waxa la yiraahdo ama perishable items iyo xoolaha nool la kala iibsado. xoolo nool iyo cunno hadday tahay agabka la kala iibsaday ama badeecada la kala iibsaday, iibiyuhu waxaa ku waajibayo in uu gaadiid ku habboon ku soo waarido agabkii la kala iibsaday si agabkii uu u yimaado iyo agabkii oo ah fit for purpose ama ujeedkii loogu talagalay ama munaafacaadkii laga doonayay in laga heli karo agabkaas. haddiise wax xoolo aynan ahayn inanimate objects waxa loo yiraahdo kale, waxa aanan noolayn ama aanan ahayn cunnada, waxba kuma jabna iibiyuhu inuu go'aan ku gaaro nooca ugu habboon oo ku keeni karo iyadoo wax si gaar ah loo eegaynin agabkii in lagu soo qaado gawaari ama gaadiid maaragtay maxaan ku wadaay khaas ah oo camal. okay, waxa kaloo aan ka hadlaynaa haddii ay jirto garantiyo ama ay jirto muddo lagu heshiiyey agabkaasi taya ahaan in uu gaari karo, iibiyuhu waxaa waajib ku ah in agabkaasi maaragtay haddii wax ay ka soo laabtaan in uu magdhow uu bixiyo. sidaas darteed waxaa muhiim ah agabku in uu ahaado fit for purpose waqtiga loogu talagalay ama muddada loogu talagalay ee garantiyada lagu wada heshiiyey. heshiisyada iibka iyo maaragtay iyo kala gadashada waxay aad muhiim ugu yihiin in la barto. waxaa jirto waxyaabo iska fahan ama iska garo darteed qofku isagoonan muujinin ama heshiiskii la wada galay ku muujinin uu iska filanayo haddeedna aanan dhacaynin. marka waxaa muhiim ah in heshiisku wax walba lagu qeexo, haddii ay tahay tirada, haddii ay tahay tilmaanta, haddii ay tahay tayada, haddii ay tahay gaadiidka lagu qaadayo, haddii ay tahay goobta la geynayo, waqtiga la soo qaadayo iyo conformity issues wixii oo dhan in ay maaragtay yihiin wax waafaqsan shuruucda caalamiga ah. marka waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala shuruudahan in ay iibsadaha iyo iibiyeyaashuba iska ilaalin doonaan. iibsadaha waxaa waajib ku ah sida ugu dhaqsiyaha badan agabka markii loo soo daabulo ama loo keeno sida ugu dhaqsiyaha badan in uu ogeysiis ku bixiyo haddii uu arko wax jibinaya wixii lagu heshiiyey. haddii uunan ogeysiis si degdeg ah uunan ku bixinin oo agabkii loo soo daabulay uu iska qaabilo oo dib dambe waqti dambe uu haddana uu keeno dacwooyin, waxa uu luminayaa xuquuqdiisii uu ku heli lahaa bedel ama in magdhow uu helo waqtigii ka lumay iyo qarashkii ka lumay. haddii iibiyuhu uu maaragtay waqti ahaan soo daabulo agabkii waqtigii loogu talagalay waqti ka horeeyo, wax dhibaato ah oo ku sugan ma jiraan haddii uu soo dhammaystiro inta dhiman waqtigii ama waayihii lagu heshiiyey ee loogu talagalay. laakiin haddii ay jirto iibsaduhu haddii uu ka dacwoodo hayntii uu haynayay agabkaas inuu qarashaad ku galay, deeta waxaa meesha ka abuurmi kara magdhow uu heli karo iibiyuhu. marka waa in iibsaduhu uu iska ilaaliyo iibiyuhu magdhow uu heli karo iibsaduhu. iibiyuhu waa inuu iska ilaaliyaa marka
agabkii inuu hore usoo daabulo oo waqtigii lagu heshiiyey waqti ka horeeya keeno asigoo isleh contractigii waad buuxisay laakiin meeshan ay ka ratibmi karto bakhaarayntii ama maaragtay ilaaladii ama maxaan ku dahay hayntii qarashaadka ku baxa in lagu soo dallaco marka waxaan oo dhan waa muhiim marka la kala iibsanayo badeecadu haddii ay tahay nationally ama maaragtay waddanka gudihiisa ama hadday tahay internationalba waxaa jiro xataa iyadoonan qoraalba jirin contract wax international law uu dhigaayo oo maaragtay difaacaya qofka iibsadaha ah wax allaala waxaad doontid iskama iibin kartid waa in uu international law waafaqsanaadaa haddii midda kaloo jirto inaan ku darsado aan rabo waxay tahay haddii tilmaanta tayada iyo maxaan ku radayay tiradaba uunan waafaqsanayn waxa contractka ku qoran laakiin qayb uu ka og yahay iibsaduhu wuxuu meesha ku luminayaa xuquuqdii uu lahaan lahaa haddii waxaasi uunan hore u ogeyn tusaale ahaan waxaad dalbatay agabkii waxaad maaragtay maxaan ku radayay markaad soo iibsanaysay ruuxii aad ka soo iibsanaysay ayaa wuxuu ku ogeysiiyey tayadii loogu talagalay inuusan ahayn adna waad ku raacday markaad soo qaadatid kadib dib intaad ka dacwootid conformity ma laha ama maaragtay sharciga waafaqsanaanta ee international lawga ma waafaqsanaa tayadii loogu talagalay agabka ma gaarsiisna kuma dacwoon kartid haddiiba aad wax ka ogeyd markaad dalbanaysay in defects ama dhibaatada ama dhaawaca inuu jiray haddii aad ogeyd taasina waa issue kale waxaa kaloo iyadana meesha jirta iibiyuhu kuma qasbana inuu ogaado legislationka ama shuruucda iyo qawaaniinta waddanka adiga aad maaragtay geynaysid agabka inuu ogaado kuma qasbana waddankiisu ama meesha iibiyaha uu joogo oo laga qaadayo badeecada in uu xeerarkeedii iyo qawaaniinteedii uu waafaqo unbaa meesha laga doonayaa haddii laakiin aad u sii sheegtay haddii aad tahay iibsadaha waddankaaga waxa shuruucdiisii iyo qawaaniintiisa ee ku aadan agabkaas aad iibsanaysid markaasi wuxuu meeshu waxaad maaragtay maxaan ku dahay waa in uu waafaqaa xeerarkii iyo qawaaniintii aad u sheegtay marka waxyaabahaas oo dhan waxaa ka ratibmaayo shuruuc iyo qawaaniin aad u fara badan marka contract law waa very important marka ay waddamo kala fog la joogo oo intaasoo qarash gaadiidkii soo qaadaya lagu bixinayo celinteedii ay dhibaato keenayso waa muhiim waxaan oo dhan in aanan loo arkin wax si sahlan loo qaadan karo ee aanan maaragtay la yaraysanin ee intay goorigoor tahay wax walbaba lagu qeexaa heshiiska labada dhinac ay gelayaan waxaan jeclahay inaad aad iyo aad uga hesheen insha allah intaasaan kusoo koobayaa maanta maaragtay contractiga ama heshiiska u dhexeeya buyer and sellerka ama iibiyaha iyo iibsadaha intaan mar kale kulmeen insha allah waxaan kala tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kaskaaga ku biirso waxbarasho ahdaada la qaybso waxbarasho